waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha halkan isugu yimid madax dhaqameedka culimada waddanka salaanta kadib qodobkan maanta la isugu yimid ee ahaa gudida shirkii hoodaale anuu ku hadlayaa magacii xubnaha golaha dhexe gobolkan ka soo jeeda waxa aan ku soo gaabinayaa qodobkan iyo sharciga muwaadin kasta xaq wuxuu u leeyahay in la doorto waxna uu doorto sida dastuurka qaranku sheegaya muwaadinka habka uu marayaana waxa weeye inuu xisbi ka mid yahay xisbiga waa inuu golihiisa dhexe ka mid yahay golaha dhexe waa inuu codka ugu badan ka helo intaas oo shuruud ah ayaa ka horreysa in qofku musharax ka noqdo xisbi ama madaxweynaha noqdo meesha golaha deegaanka lagu kala saarayo golihii deegaanka beelaha loo diri jiray ma aha waxa weeye waa madaxweyne qaran baa la kala saaraya intaasoo sharti guddidu iska dhatirtay guddida horumarinteedu ma aha kala qaybsanaanta beeshan beel aan shirin ma jirto intaa madax dhaqameedkii iga horreeyey ayaa dhameeyey dalkan dastuurkiisana waxaa ka mamnuuca wax koota la ydhaa kootay dumarka loogu xidho reeraha laga tira badan in loogu xidho iyo in odayaal la ururiyo la ydhaa kootay igu xidho intaa midna dastuurka qaranka ma ogola sidaasi ayaan macnaha mar labaad u bayaaminayaa xubnaha golaha dhexe xilliga isku yimaadaan ciddii cod aqlabiyada ka hesha ee xisbiga ka mida ayuunbaa loo aqoonsan doonaa musharaxa u dambeeya ee la dooran doono والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.